arrintan booliska dalka City India waxa ay ku riday jahawareer waxaana ninkaniitu ay tuhmayeen booliska inuu yahay qofka qoyskiisa dhibaateeyay dhacdaba in ugu dambeyn isagiiba meydkiisa ay soo helaan baaritaanna booliska ay ku sameeyeen xubnaha qoyskana waxa uu caddaatay in falka qoyskaniitu lagu dhibaateeyey uu ahaa qaab qorsheysan maadaama si isku wada mid markaa loo toogtay arrintanna waxa ay horseeday in booliska baaritaan xooggan ay sameeyaan ilaa heer ugu dambeyn gacanta ay ku soo dhigaan qofkii ka dambeeyey mas'uuliyadda ninkan oo ay u soo qabteen booliska waxaa qaraabo dhow uu leeyahayba qoyska la dhibaateeyey oo isaga gacantiisa ay sababsadeen ninkan wuxuu qoyskaniiti u dhibaateeyey waxay tahay cuqdadii ilaa heerkaniiti soo gaarsiisay in dhammaan xubnaha qoyska uu wada dilo maxaa markaasiita ujeedu damacsanaa muuqaalkan wax walba ku faaqidi doonaa inta soo gudageli muuqaalka markale waxaa ku xusuusinaa in muuqaalkan intii alla garaysiina share garayso haddii aad ka mid yihiin bahweynta nagu xiran nagu soo biirto wad ku maasanta waqti ku bixinaysa washada muuqaalkan aan gudagalno muuqaalkeena maanta qistan waxay dhacday bishii 11aad sanadii 2024 waxaana ka dhacday degmo lagu magacaabo Varanasi kana tirsan gobolka City Uttar Pradesh ee waddanka City India saldhig boolis oo halka City ku yaalo yaa xilliga City waxa soo wacay dadyow tilmaamayay shaqaaqo guri diris la ah inay ka dhacday halka inay tuhmayeen in qoyska guriga City ku noolaa lagu dhibaateeyay waxa fariin ah booliska loo faray in halka City si degdeg ay ku soo gaaraan adreeska iyo qorteen booliska waxaana durbadii bay u soo dhaqaaqeen goobta loogu tilmaamay in shaqaaqada ay ka dhacday gurigii ay yimaadeen baaritaan ay ugu dhaqaaqeen gudaha guriga ay u soo gudbeen qolalka guriga baaritaanada markii ay ku bilaabeen qolkii ugu horreeyay markii ay fureen waxa halka City ay kula kulmeen hooyada qoyska meydkeeda waxaana meydka hooyada u ahaa mid xabadka iyo madaxa laba xabadood looga dhuftay qolalka kale ee guriga iyo baaritaano booliska ugu sii dhaqaaqeen in xubnaha kale ee qoyska ay ka sii baaraan waxaana qolalka kale ay ka heleen labadaniiti inan iyo gabadhan oo reerka ka dhalatay meydadkooda waxaana ay ahaayeen kuwo xabadka iyo madaxa xabada looga wada dhuftay xubnaha qoyskaniiti in la dhibaateeyo la baabi'iyay booliska waa ay dareemeen waxaana ay noqotay bal inay tuhmaan oo isdhahaan aabahana mubad qabaa bal baaritaaniya guriga ka sii sameeyeen in aabaha bal nolol iyo geeri un mid ay ku helaan guriga waa ay ka waayeen in booliska aabaha meesha aysan ku arkin sidoo kalena wax warbixin dhankiisa aysan ka soo gaarin waxa ay tuhmeen oo isdhaheen isaga amuu ka dambeeyaaba isaga amuu yahay qofka qoyskiisa mishimayo mas'uuliyadda qaadan karo in sidaaniiti wax loo galo qoyskiisa booliska waxa diriska ay xal wareysteen waxay ku dhaheen ninkan qoyskaniiti mas'uulka ka ah aabaha Rajendaran lagu magacaabo bal xaaladiisa nooga waran maxaa warbixin ka ogtiin waxyaabaha inta xog ururinta booliska ay sameynayeen diriska ay u tilmaameen waxa ahayd in ay dhaheen ninkan diriskan waxaan ku ognahay isaga ninkaniiti inuu ahaa nin dabeecadiisu ay qallafsan tahay isaga iyo caruurtiisa iyo xaaskiisa marar kala duwan waa isku dhici jireen buuqooda waan maqli jirnay sidaasaytii markaa waxa aan tilmaami karnaa oo keliya in nin dabeecadiisu ay aad u qallafsan tahay uu ahaa booliska in warbixinada ay arooriyaan loo tilmaamayay ninka qoyskaniiti mas'uulka ka ah inuu yahay qof dabeecadiisu ay qallafsan tahay waxa ay sii xoojisay tuhmadoodii ah in isagoo marka uu ka dambeeyay in qoyska sidaaniiti loo galo waxa ay sameeyeen in baaritaanba ugu dhaqaaqaan qaabka iyo sida ay ku soo qaban karaan waxa ay isku tuseen inay tahay in bal teleefankiisa meesha uu ka daaran yahay marka hore inay ogaadaan waa ay baareen teleefankiisa waaba uu daarnaa GB locationka ay soo raaceen waxaana teleefanka uu u tilmaamayay ninka qoyskaniiti mas'uulka ka ah oo lagu magacaabo Rajendra in uu ka daaran yahay meel 20 kiiloomitir u jirta waa ay soo dhaqaaqeen booliska goobtii yimaadeen goobta teleefanka inuu ka daaran yahay uu tilmaamayo waxa ay ahayd guri dabaqa oo xilliga City dhismo uu ku socday in gudihiisa marka uu tilmaamayo teleefanka inuu ka dhex daaran yahay gudaha guriga ay u soo gudbeen dabaqyada ugu horeeyana guriga waxa markaa City yaalay agabyadii guriga lagu dhisay iyo shamintada meel ka mid ah dabaqa oo xilliga City sariirta leeyahay waxay arkeen qof dul saaran qaawan oo dharna aan xirnayn way u soo dhawaadeen waxaana ay markii ay dul yimaadeen noqotaba inay arkaan ninkii ay raadinayeen meydkiisa ninkaaniiti Rajendra waxaana isagana looga dhuftay xabadka iyo madaxa laba xabadood qaabka xubnaha qoyskaniitiyo idin loo wada dilay boolisku waxa marka ay xaqiiqsadeen inay tahay fal laga soo qorsheeyay meel fog
cadaawad ama argoosi la xiriiri kara in qof markaa si aad ah u soo qorsheeyey falkaniti inuu geystay mas-uuliyaddaniti inuu ka dambeeyey maadaama calaamadda uu sameynaya ay ahayd in dhammaan xubnaha qoyskaniti xabadka iyo madaxa uuna ka toogto meydadkii ay soo aruuriyeen waxa markaa ay noqotay in baadigoob bal ay u galaanoo qoyskaniti yaa cadaawado sidaaniti u maleegi karo inuu dhibaateeyo waxa markaa ay xilligaasiti inta waraysiid ay ku jireen booliska ay wareysteen maamada ninkaniti Rajendra dhashay waxaana boolisku markaa ay ku dhaheen maama noo waran maxaa ka ogtahay inankaaga iyo qoyskiisa dhibaatada soo gaartay maamada waxa markaa ay isdareysiisay murug booliska laakiin qaabka maamada falcelinta ay u sameynayso waxyaabaha reaction ahaan ee falcelinta ay ka arkayeen ay ahayd in bal xoogaa tuhno ay ku dhalisay ee qaabkii u jawaabaysay waxay dhaheen maamada booliska maamo waxuu nina ogtahay aan tuhmeynaa waxaa samaysaa sida xaqiiqadii wax u jiraan noogu sheeg maamada waxa markaa xilligaasiti ku tiri waan garanayaa inankeyga iyo qoyskiisa qofka dhibaateeyey yaa waayaa la dhahay waxay dhahday waxaan tuhmayaa in inamo adeer uu u yahay laxmiya ay ka argoosteen oo ay dileen waxa markaa noqotay boolisku inay dhahaan qaab sidee wax u jiraan arrintu waxa ay tiri maamada waa arrin cadaawad la xiriirto muddo 27 sano ka hor 1997 soo bilaabatay sidee wax u jiraan la dhahay waxay tiri inankan curadka ee haatan la dilay Rajendra waxaa jirtay inan kale oo isaga markaa la dhashay aabahood waxaa lagu magacaabaya Lakshman aniga ninkeyga waa dhahday waxa uu ahaa Lakshman nin ganacsada ah magaaladana laga garanayay ganacsiyo kala duwan haysta ilaa heer shirkado dhismo xitaa markaa isaga markaa lahaa mas'uuliyadooda labadan inan ee Rajendra iyo Krishna waxay ahaayeen inamo aabahood la shaqeynayay reerayay lahaayeen dhahday laakiin dabciyadoodu waa ay kala duwanaayeenoo ninkan Rajendra waxa uu ahaa nin dabeecadiisu ay qallafsan tahay walaalkii way isku dhici jireen cid dhammaan qoyska aniga iyo aabihi xitaa waa isku marar badan waa isku dhadhacnay dhahday oo buuqiyo markaa qoyska ka dhex taagnaay sidoo kale goobaha shaqada marka ay timaado ninkaniti Rajendra waxa uu ahaa nin dabeecadiisu ay qallafsan tahay in badanna markaasiti dabeecadiisa shaqaalaha sida uu ula falgalayo waxa ahayd mid laga caawdo waxa markaa dhacdaba aabihii Lakshman in markaa uu marar badan uu caqli celin Rajendra waxaa lagu dhahay sida iyo qaabka aad u dhaqmayso mas'uuliyad ma ahan waxa samaysaa dabeecadaada hagaaji taa cagsigeeda Krishna waxa uu ahaa dhahday inanka curad labaad ii ah in mas'uuliyadaha uu isdareensiinay shaqaalaha si wanaagsan uu la dhaqmayay aabihii qofka mas'uuliyad ahaan bedeli kara waxa uu ahaa hab dhaqanka marka la fiiriyo Krishna ayuu ahaa dhahday ninkan Rajendra uriya loo yeeshay xaaskiisa aabihii waa uu ku farxay dhahday Lakshman markii xaaska ay dhashay muddo gaaban kadib waxa dhacdayba in xaaskii ay geeriyootay baaritaanada iyo sida booliska markaa meydka marka la arkay waxyaabaha laga diiwaan geliyey waxaa la tuhmay dhahday in xaaska Rajendra aysan si caadi aysan u geeriyoono qof la dhibaateeyey ee ahayd waxa markaa Lakshman aabaha ay noqotay in uu xoogaa tuhmo inankiisa Rajendra ee curadka in dabeecadiisii qalafsanayd xaaskiisa darteed isku dhaceen sidaasii uu ku dilay aabaha sidaasii uu tuhmay waayo dabeecadda iyo waxyaabaha uu ka arkay inankiisa curadka yaa waxay noqotay inuu isdhahay bal isaga mas'uuliyadda kama fogo laakiin waxa cadayna maadaama uusan haynin waxay dhahday aabihii Lakshman waxa uu sameeyey in xilligaasii uu iska aamusay waxa laakiin xilligaasii uu go'aansaday dhahday Lakshman in inankiisa curadka maadaama hab dhaqanadiisa uu arkayo curad labaadka Krishna in mas'uuliyadaha idil isaga marka lagu wareejiyo maadaama qof mas'uuliyad qaadi karo uu ahaa dabeecadiisuna ay wanaagsan tahay Krishna waxay dhahday waxa uu lahaa xaas iyo caruur ya u joogay oo 3 caruur ah laba inan oo lagu kala magacaabo Jigno iyo Fiki iyo gabar Dooli la dhaho noloshiisa sitii isaga socday mas'uuliyadaha in ninkaniti Krishna lagu wareejiyay waxa uqdad ay ku beereen dhahday inankan Rajendra lagu magacaabo waxaana dhacday 5 bishii 11aad 1997 maalinimo Talaado ah in ninkaniti Rajendra uu soo qorsheystay in walaalkiis ka yar ee Krishnaba jibihaanba nolosha uu dhaafsiiyaba gurigiisii soo aaday albaabkii uu soo gargaraacay Krishna albaabka markii uu ka furay darbadiba walaalkii maadaama sikadiis uu yimid waa uu la yaabay waayo oo uu soo sheegi jiray oo sikadiis ku muusan imaan jirin soo dhaw walaal markuu dhahayna
durbadiiba ninkanaytii Rajendra waxa uu sameeyey dhahday in xabadka iyo madaxa uu kaga dhuftay xaaska iyo isagana sidoo kale sameeyey in xabadka iyo madaxa xabad uu kaga dhuftay labadii inan iyo gabadha meeshii kaga tegay dhahday oo ma uusan dilin waxaana ay noqotay in baaritaanada booliska marka ay bilaabeen oo xoogaha ay dheeraatay in haddana kiiskii ninkanaytii Rajendra aabihiisa Lakshman boolisku uu ku cadaadiyey uu ku dhahay meel uu ku soo sheega inankeyga Krishna qofkii dhibaateeyey booliska baaritaanada ay sameynayeen waxa ay noqotay in ninkanaytii Rajendra la dhaho inankanayti yaa baaritaano aan tuhmayna in isaga marka uu ku lug leeyahay oo kale waa la xiray dhahday Rajendra muddo 2 sano ayuu xirnaa xilligaasii waxa ninkanaytii Rajendra aabihi Lakshman uu qaaday cuqdad ah in inankiisa maadaama tuhmo ay soo gashay curadka in walaalkii ka yar uu dilay in marka ay noqotaba labada inan ee Krishna uu ka tagay ee Jignu iyo Fiki in shaqadii markaasii uu kala baray si mas'uuliyadaha oo marka xilligaasii uu la wareegaan dhanka kale inankanayti Rajendra lagu magacaabo ee reerka curadka uu ahay in walaalkiis ka yar isaga uu dilay dartii tuhna xabsi in loogu xiray waxa xabsigu ku xirnaa 1997 ilaa laga soo gaaro 1999 kiiskiisii intii xirnaayna wax badan oo warbixina booliska kamaysan soo saarin damaanada lagu soo daayay sidaas ay dibadda ugu soo baxay Rajendra inuu arkay aabihii in walaalkii maadaama uu dilay labada inan ee uu dhalay in shaqadii la barbarayo cuqdadii kale halkaas ay ka sii qaadayba inuu isdareensiyo isdhahay adiga haatan wixii markaa ka dambeeyo haddii labadan inan shaqooyinkii waxyaabaha dhan ay la wareegaan ganacsiga adiga waxba ayaa noqonaysaa meeshana magacuyaal yaa markaas ku ahaanaysaa oo kale waxa uu sameeyay dhacday in bal xilligaaniti aabihii uu qorsheeyaba in uu dhibaateeyo Lakshman xilligaasiti waxa uu dareemay dhahday in inankiisa Rajendra uu waxyaabo markaasiti aan hagaagsanin uu sameeyay dabeecadiisa xoogaa isbedel uu ka arkay cabsi inuu dareemay Lakshman waxa dhacday in ilaale xilligaasiti uu sameystay hal bodyguard waxaana habeenada kamid ah 1999 isagoo shaqadiisa ka soo waxay dhacdayba in dad xilligaasiti mootooyin saarnaayo wajiga soo duubtay in rasaas ay huwiyaan oo Lakshman iyo bodyguardka la socday halkaasiti marka uu ka geeriyooday anigu waan dareemay waxay dhahday in xoogaha ay qaldan yihiin oo kale Rajendra waxa xilligaasiti aan ku dhahay aabahaaga waa uu geeriyooday sidoo kale walaalka Kayar waa uu geeriyooday iyo xaaskiisa carruurtan walaalka Kayar dhalay mas'uuliyadooda iyo anigaba adigay ku saaran tahay oo kale maadaama curadka reerka adiga aad tahay waxaan ku dhahday xilligaasiti hantidan iyo idil maamulkeeda si hagaagsan u wad dabeecadaha isbedel ku sameeyo kale marka waan dhiirigeliyo kale Rajendra xilligaasiti waxa uu istusay in mas'uuliyadihii iyo wixii uu daneynayo idil in maalkaniti isaga uu maamulo in gacantiisa ay soo galeen waa uu guursaday dhacday oo inan lagu magacaabo Nitu uu guursaday waxa marka ay noqotay in mas'uuliyadaha ganacsiga isaga sidaasiti gacanta ugu hayay muddo dhowr sano haba inamada waa ay dareemayeen in xoogaha adeerkood maadaama guriga marka falka uu ku sameeyay ay arkeen sidoo kale marka hantida uu isleeysiinayo waa ay barbaareen dhacday oo si fiican u sii barbaareen waxa ay noqotay Jignu iyo Fiki in magaalo kale iska aadaan oo Delhi iska aadaan gobolkan Uttar Pradesh waa ay ka tageen walaashood waa ay hana qaaday oo guriga soo gaartay waa ay guuriyeen 2021 yaa waxa dhacday in Fiki iyo Jignu mar intee gobolka yimaadeen adeerkood guriga intee ugu tageen oo ay dhaheen adeer aabo dhaxalka marka uu ka geeriyoodo qaybta uga aadan maalkan naga sii waxaan doonaynaa inaan ka qaadano naga nolosheena ku sii wadano waxa marka dhacday in adeerkood uu ku xanaaqay Jignu iyo Fiki Rajendra xilligaasiti waa uu xanaaqay dhacday dacwo ahaan iyagu yimaadeen ayagoo dhahayo ayeeyo waxa aan doonaynaa dhaxalka aabaheen qaybta maalka uu ka lahaa maadaama uu geeriyooday muddo fogna laga joogo in dhaxalkeeni inagana la siiyo adeer maalka uu isku dhijinaya waa aan u tagnay xitaa waa uu diiday in marka anaga dhaxalka qaybteena uu na siiyo waxaan dhahday anaa la hadlaayo macquul lama ahan Rajendra muddo 20 sano ka badan in weli maalka uu iska sii haystaba sidaasii wax ku socdeen dhacday arintu hoogaa waa ay daba dheeraatay bishii 11aad sanadii 2024 waxa dhacday ninkanaytii Fiki in xilligaasii guriga uu ku soo weerarayba bistooladii soo qaatay gurigii uu yimaaday adeerkiis Rajendra
xilligaasiti guriga waxa markaasiti joogay isaga waa uu ka maqnaayo xaaskiisii carruurtiisii yaa joogay waxaa Vicky uu sameeyey in xaaska adeerkiis xabad madaxa iyo xabadka uu kaga dhuftay inamada iyo gabadha carruurta marka inama adeerada ay yihiino waxa uu sameeyey ninkaaniti Vicky in sidoo kale xabadka iyo madaxa xabad uu kaga wada dhuftay qaabka iyo sida uu u dilna waxa ay tahay in qaabkii aabihii iyo hooyadii loo dilay ay tahay oo Rajendra uu u dilay 1997 in xabadka iyo madaxa xabad uu kaga dhuftay waxaa Vicky xilligaasiti kadibna uu sii sameeyeyba in adeerkiis Rajendra uu sameeyey in xabadka iyo madaxa xabad uu kaga dhuftay meel 20 kilomitir u jirtana uu ku dilayba arrintan in fal cadaawad la xiriira ay tahay booliska warbixinta city idil inay heleen waxa ay noqotay in balbaadi goob u galaan ninkaaniti Vicky iyo Jigno labadan waxa ay dareemayeen ninkaaniti Vicky waa uu dareemayay maadaama wax dhib uu soo sameeyey in la isa soo dabagalayo la isla xisaabtamayo gacantana lagu soo dhigi doono waxa uu sameyn jiray in ciwaano been abuur oo kale marka oo isaga xogtiisa saxda uusan ku diiwaan gelinin yuu kala xiriiri jiray walaalkiis Jigno booliska durbadiiba ma aysan soo qabanin maadaama isaga dhibka uusan geysanin laakiin waxa ay ku dabaayeen walaalkii oo Vicky in markaasiti ay gacanta ku soo dhigaan maalin maalmaha ka mid ah yaa waxa dhacday Jigno iyo Vicky oo wajiga soo xirtay in meel ka mid ah magaalada marka ay ku kulmaan waxaana dhacday in xilligaasiti gacanta lagu soo dhigo wajiga yaa laga furay ninkii wajiga u xirnaay ee Jigno la kulmay Vicky yuuba yahay wareysiga marka laga qaado waxa la dhahay xaafalkanaytu u geysateen oo kale wareysiyada iyo hadallada isdhaafsadeen boolisku waxa marka ay noqotay inay si xaqiiqsadaanba in inamadanayti falkan adeerkood Rajendra ay ku dileen inay tahay fal cadaawad la xiriirto inamadanayti ay ka aarsanayeen adeerkood Rajendra maadaama hore dhib uu u gaarsiiyey aabahood iyo hooyadood agoon uu ka dhigay noloshana uu isdareensiinayay in maalka isaga kaliya uu qaato arrintaniti dhaxal inay la xiriirto boolisko labadan inan waa ay xireen waxaana marka ay noqotay in balbaaritaanada cadeymanku idin loo soo dhammaystiro weli waa arrintaasiti waa lagu guda jiraaho maxkamad waxa marka ay noqonaysaa in xukunkooda ay wajahaan markii cadeymanku idil si dhammaystiran loo soo diiwaan geliyo sidaasitina marka xukunka wix ayaga marka ay muteystaan maxkamadda ay ku xukunto ninkan Vicky sida uu kula muuqdo miyuu kula saxan yahay in adeerkii xaaska uu qabay iyo inamada walaalaha ay yihiin oo ilma adeerada uu ka argoostay dhammaantood inuu wada dilay falkaasiti inuu ku dhaqaaqay miyuu kula saxan yahay oo kale isagoo uu arguday aabihii iyo hooyadii sidee marka aragtidaada kula tahayna maxaad ku tilmaami kartaa falkan qaybta faaladii noogu reeb ilaa dhammaadka haddii aad nala soo gaartay fadlan nagu taageer in muuqaalkaniti aan lay garaysiina sheer garayso si janalka meel dheer uu u gaaro haddii aadan ka mid ahayn bahweynta halkaniti ku xiranna un kugu dhiirigelinayaa in halkaniti aad ku soo biirto si muuqaalada sidaan oo kale qisooyinka aysan kuu dhaafin waad ku mahadsan tahay mar kale daawashada muuqaalkaniti aad ku bixisay muuqaalkan muuqaalka xiga noo ballanah